dhageystayaal daawadayaal warbixintan waxaynu ku eegi doonaa daandaansiga iyo damaca dowladda Kenya ee ku aadan doonista markaasi biriga iyo badda Soomaaliya oo waayihii ugu dambeeyay ee xanjaarasho ugu jirtay sidii ay ku heli lahayd. tan iyo markii gumaystihii Ingiriisku Kenya ku wareejiyay dhulkii Soomaalida ee NFD waxaa taagnaa khilaaf sooyaal ah oo ka taagnaa saami dhuleedka Soomaalida ee sida dhagarta ah loogu daray soohdinta dowladda Kenya. waxaa hubaal ah in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka NFD iyo sidoo kale qaybaha kale ee dalweynihii Soomaaliya ay gocasho taariikheed ku tahay sadbursiga ummadeed iyo xuduud dhuleedka la raaciyay dhulka Kenya iyo hamiga Kenya ay wili ugu hamuun qabto inay kula wareegto qaybo kamid ah xuduudaha badda iyo biriga ee dalka Soomaaliya. damaca noocaasi ah ayaa waxa ku dhiiri gelinaya Kenyaanka inay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin waaye adag khilaaf siyaasadeed mid beeleed iyo sidoo kale dagaalo caynbacayn ah iyadoona u aragta fursad ay uga faa'iideysan karto oo ay ku qaadan karto qaybo kamid ah dhulka iyo badda Soomaaliya. balse dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ayaa mar walba waxay aaminsan yihiin inay Soomaaliya tahay si fududna aan lagu dhagri karin. tusaalaha ugu nugul ayaana xilligan laga dheehan karaa daandaansiga iyo sidoo kale damaca dowladda Kenya ee jihooyinka badan oo ay ku doonayso inay ku boqnogoyso dib u soo kabsashada dadka iyo dalka Soomaaliyeed kadib sanooyinkii adkaa ee lagu soo nolol qaatay dagaalo burbur dowlad xumo iyo sidoo kale siyaasado isdiidan. dowladda dalka Kenya waxay isu tusaaleynaysaa inay haystaan fursadaha galaangalka ay ugu leeyihiin faragelinta arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale inay leeyihiin awood military oo ay dadka Soomaaliyeed kaga faramarorsan karaan dagaalka dihan ee hodanka ku ah badda iyo biriga Soomaaliya. soo gelitaankii ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya ayaana loo arkaa inay ahayd fursadii albaab furka u noqotay sheegashada Kenya ee xuduud badeedka Soomaaliya. sidoo kale dhismaha derbiga ujeed badanka ah ee lagu xalaalsanayo dhulka Soomaalida ee ku teedsan xuduudda labada wadal ayaa isna sidoo kale noqday mid fursad u noqon kara dalka Kenya. dowladda Kenya waxay markaasi kala tacadiyo muuqda iyo kuwa qarsoonba ku hayaan ganacsatada iyo qaxootiga Soomaalida ee waayuhu baday inay maciin bidaan arafaadka ku haysta gudaha dalkaasi. waxay fursad ay ka gorgortamaan ama ay ku gorgortamaan iyo naas u irmaan ka dhigtaan hay-adaha iyo sidoo kale dalalka caalamka ee taageerada siiya boqolaalka qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee dalkaasi Kenya. waxayna dowladda Kenya xeelad ka dhigata in ay beesha caalamka ugu cagajuglayso in ay xiri doonaan xeryaha qaxootiga iyo sidoo kale in ay dadka Soomaaliyeed dib ugu celin doonaan dalkooda. xeeldheerayaasha ayaa rumaysan in ay Kenya muddo dheer ku naawilaysay in ay dhabo u helaan sheegashadooda been abuurka ah ee milkiyada qayb kamid ah xuduud badeedka Soomaaliya. dowladda Kenya waxa ay sheegataa in ay dukumeentiyo aan lahayn sugnaasho sharci ah la saxiixdeen qaar kamid ah madaxdii hore ee Soomaalida balse madaxdaasi ayaa gaashaanka u daruurtay in ay qalinka ku duugeen heshiiskaasi iyadoo ay Kenya u aragto heshiiskaas been abuurka ah mid ay ka dhigan karto aqil hagoogsan ku qabso ku qadimayside. qorshahaas ayaana fashilmay kadib markii ay dowladda Soomaaliya July 13keedii 2015 u gudbisay maxkamadda garsoorka caalamiga ah ee ICJ ee dalka Holland dacwad ka dhan ah sheegashada dowladda Kenya ee xuduud badeedka Soomaaliya oo ay markaasi ku fadhiya in ka badan 100 kilomitir oo isku wareeg ah oo sidoo kale ay markaasi ka buuxaan kaydadka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. xuduud badeedkaas oo 3 geesood ah waxa uu ku yaalaa badweynta Hindiya iyo sidoo kale meel u dhow xuduudda badda ay Soomaaliya kala wadaagto dalka Kenya. dowladda Kenya waxay gaashaanka ku dhufatay in ay xeerbeegtida ICJ qaadaan dacwadaas waxayna sheegeen in Soomaaliya iyo Kenya dacwadan ku xalisan doonaan meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.
balse dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay in ICJ ay xukmiso muranka xuduud badeedka iyadoona maxkamaddu ay dhageysatay dhowr jeer garmaqalka labada dhinac. dowladda Kenya waxay bilowday galaangal kasta oo ay ku cadaadin karto oo sidoo kalena ay ku colaadin karto Soomaaliya, waxayna ku dhawaaqday in Soomaalidu cadow ku yihiin dowladda Kenya. waxay sidoo kale qaylo dhaan ka muujisay shirkii London ee looga hadlayay soo bandhigida shidaalka Soomaaliya, iyagoona ku dooday in ay Soomaaliya xaraashayso xirmooyin ka mid ah kaydadka shidaalka ee ku yaala xuduud badeedka dhinaca Kenya, balse sheegashadaasi waxaa la cadeeyay inaysan waxba ka jirin. dowladda Kenya waxay isla xilligaasi u yeerteen safiirkoodii Soomaaliya, iyagoona soo eriyay safiirkii Soomaaliya ee Kenya. dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed ayaa bilowday, labada madaxweyne ayaana sheegay kulan uu qaabadiisa lahaa Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya, balse kulankaasi waa lagu hungoobay khilaafkii diblomaasiyadeed ee labada dhinac ama labada dal ayaana si laba kacleeyay, waxayna madaxda Kenya ku kaceen falal xasaasiyad diblomaasiyadeed abuuray oo aan indhaha laga qabsan karin. xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo xasaanad leh kuna safrayay baasaboorka diblomaasiga ayaa bishii May ee sanadkan lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, kuwaasoo loo diiday fiisaha dalkugalka dalkaasi si ay uga qayb galaan xalinta dagaal beeleedyo ka dhacay xuduudaha ay wadaagaan dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale Kenya. sidoo kale dowladda Kenya ayaa xirtay qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala Nairobi, iyagoona ku dooday sameynta baaritaano u muuqda in ay xadgudub markaasi iyo sidoo kale dhibaateyn ku yihiin maamulada iyo ganacsatada xawaaladahaasi, iyadoona falkii ugu dambeeyay uu ahaa xiritaankii aqoonyahan Ibrahim Bursaliid oo ay markaasi qabsashadiisa u adeegsadeen qodobo iyo xeerar aan iswaafaqsanayn. khubaro gudaha iyo caalamkaba ah ayaana u arkaa falalkan ay Kenya ku dhaqaaqayso kuwa ay ku doonayso in Soomaaliya ay uga tanaasusho dacwadda dhanka badda ah ee ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ, balse dowladda Kenya ayaa ku fashilantay falal hore oo ay ku doonaysay kalaabashada dacwadda, inkastoo Soomaalidu aysan u dhiga nuglaanin arrimahaasi. waxaa habboon in falcelin kasta oo Kenya ku abuurayso xasaasiyad diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid xuduudeedba in la ogaado in hadafkoodu yahay daandaansi siyaasadeed, quursi qarannimo iyo sidoo kale duulaan bareer cad ah oo ay ku doonayso inay ku qabsadaan xuduudaha badda iyo bariga Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, waxaa wanaagsan inaan indhaha laga qabsan xadgudubyadaasi, isla markaana loo midoobo qadiyadda badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Maxamuud Muuse Sheekh, Daahfur TV, magaalada Muqdisho.